السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا idin salaamay dhamaan asxaabta ku xiran kanaalkeena asxaabay ku soo dhawaada casharkeena maanta runtii casharkan casharadii hore uu ka duwan yahay maanta waxaan soo gelinay series cusub macnaha taxana cusub taxanaan waxaan uga hadlaynaa basaliska ku jiro leges runtii leges qofkii yaqaano oo hore u isticmaalay ama qofkan u isticmaalin basaliska waxay ka bilowdaan 1500 laakiin maadaama annaga aan dad bilow ah aan wax barayno waxaan ka soo qaatay 600 waa meesha ugu hooseeyay waa meesha reedka ugu hooseeyay qof wax ku barto sidaas awgeed qof walba bilow ah wuu ila qabsan karaa casharadan aniga dabcan waxaan ugu talagalay dadka bilowga ah sidaas awgeed marka aan warka idinku badinin basalkeena aan xalino marka xujadan aan xalino leges waxaan ku doortay hore waa idinku sheegay just.com ayaa jira website kale la yiraahdo websitekaas waa lacag marka basalis badan kuma ogolanay laakiin leges waa free resource waaye basalis ku jira casharada ku jira waa unlimited adiga hadii aad wax isbaraysid adiga ku taal marka aan warka aan idinku badanin casharka soo u badanin aan hore u socdo basalkeena aan fiirino marka koobaad cadaanka wuxuu ka soo guuray saa u jeedaan G3 oo iyo ku soo guuray oo ah meeshaas calaamad fiiri waxay cadeynaysaa inuu meeshaas ka imaado oo inta imaaday oo ah F4 marka cadaanku wuxuu soo socdaa inuu askarigan qaato askarigaas kale ku darsado askarigan soo xareysto laakiin anaga waxa dhan lama sugayna marka sababtu waxay tahay anaga waxaan haysanaa almost askari noo xarooday askarigan waa la hortaagan yahay si uu ku xaroodo hadaa isweydiinaysid runtii askarigan ayaan dhaqaajinayaa askarigan haddii aan ku daro wuxuu ku qasban yahay cadaanka inuu u dilo haddii kale asagaan dilayaa oo macnaha asagaan qaadayaa askarigan ayaa la C4 ayaan waxaan ku qaadayaa askarigaas kale yaalo B3 kabacdina kuweyn ayaan ka hor noqonayaa saas awgeed wuxuu ku qasban yahay marka inuu askarigan iska qaado markaan inta imaado wuxuu ku qasban yahay inuu qaado dabcan so marka uu qaado kabacdi waxa ii xaroonaya marka askarigan oo askarigan ayaa ii xaroonayo keeba marka ku hormaraya inuu noqdo kuweyn so marka uu saas sameeyo ana waxa haystaa 3 2 3 midkaana u dhow inuu xaroodo kana wuxuu haystaa 1 2 3 laakiin macquul maahan meesha waxa ii joogo kingigeyga markuu meeshaas imaado almost ana halkaan taaganahay markuu inta imaado sidoo kale intaan jooga ma gali karo waa qabanaa saas awgeed marka ana askarigan ku daraa oo almost maxaan helnay 20 pounds ayaa helnay kor ayaa naloo qaaday so mar walba inta waxaad ugu jeedaa meeshaan fiiri 20 ay ku darsameyso kor ayuu u kacayaa marka sidaas awgeed waxaan markaan ku leeyahay waxaan gaarsiinayaa 1500 waxaan ka wadaa dhibcahan hadda 600 aan haysano aan ku direynaa ilaa iyo 2500 macnaheedu ma ahan isla cashirkan inaan 2500 ku gaarsiinayno waa serious badan ayaa qaadanaysaa almost waxa laga yaabaa aniga cashirka basaliska markaan soo gelinayo 30 daqiiqo maadaama aan waqti badan helaynin okay basaliskeen labaad ama basalkeen labaad madowga ayaa cadaanka wadanaa mar walba waa random mar walba ma wadanayno mataqaanaa madow mar cadaana qaadanaysa mar madow qaadanaysa yacni basaliskan hadaad isweydiinaysa way aan u xalinayna waxay kugu imaan kartaa as real game adigoo real game dheelaysid camal ay kugu imaan kartaa marka sida ku xalinayd yaad ku train garanaysaa ku baranaysaa so hadda marka madowga wuxuu soo guuray ruugan ayuu wuxuu keenay D8 marka anaga maxaa noo xal sababtoo u imaanaya waxay tahay bishopkan uu rabaa inuu qaato bishopkan wuxuu ku hayaa labo ruugan uu haystaa ruugan kalena uu haystaa isla markaasna ma dhaqaajin karno haddaan keeno lacala tusaale haddaan keeno E4 oo kale haddaan keeno ruugan waa free wuu qaadanaya weliba with check ayuu ku qaadanaya so waxaa jirto xal isku day haddii aad xalisay fadlan ku soo qor commentiga halka wuxuu yahay marka inaan qaadno askarigaas yaalo F7 ayaan qaadaynaa okay askarigaas yaalo F7 markaan qaadno ruugeena free ma noqonayo maya sababtoo ah boqorka madow asaga ayaa wuxuu ku jiraa qatar bishopkan ayaa qatar ku hayo marka koobaad waa inuu iska xaleeyaa qatarta sababtoo waxa ku jira check waxaan qaadaynaa marka askarigan yaalo F7 sababtoo ah
haddii aan qaadno ruugan free ma noqonayo oo ruugaas ayaa free ku helaynaa sababtoo ah ma qaadi karo ruugan kale oo boqorka madow isaga ayaaba khatar ku jiro oo check ayuu ku jiraa saas awgeed xalka waxay tahay marka inaan qaadno askariyan yaallo f7 uu ku qasban yahay inuu qaado sababtoo ah ruugan hadduu uu qaado waxaa dhimanaya boqorka sharcina ma ahan in boqorka micnaha la qabto marka koowaad waa in haddii xal uu leedahay la xaliyaa tusaale ahaan checkmate ciyaarta waxay noqonaysaa sidaan hore idinku sheegay c b r cda waxaa laga soo gaabiyey capture haddii xubinta boqorka mataqaanaya khatarta ku hayso haddii la qaban karo waa la qabanayaa haddii lacalla xubin kale ay gadaal ka taagantahay oo la difaacayo oo boqorka qaban karin midda labaad wuxuu sameynayaa protection xubin kale ayaa la hordhigayaa mid saddexaad ayaa jirta oo ah run in meeshiiba iskaga carara boqorka markaas saddexdaas haddii la waayo ciyaartu way dhammaatay so marka hadda saddexdii mid kamid ayuu haystaa boqorka khatar ayuu ku jiraa c b r ayaa la fiirinaya cda ayaaba hore kasoo baxday oo ah capture inuu qabto xubinta khatarta iskaga hayso ilaan xubin difaacaysa malahan so sidaas awgeed marka annagana waxaan helnay xubin free ah oo ruugaas ayaan qaadanaynaa laakiin su-aal annaga bisha baana laga qaaday ruugaan qaadanay maxaa noo soo kordhay haddii waan ka xumahay waan ka cudur daaranaya ma aanan soo gelinaa filnaa ma hubo cashar ka hadlaya xubnaha qiimahooda ruuga waa 5 dhibcood bishopkana waa 3 sidaas awgeed meeshaas maxaan ku helaynaa 2 dhibcood iyo askariga aan qaadnana waa dhibic ku dar meeshaas waxaan ku helaynaa marka 3 dhibic 3 dhibcood ayaan ku qaadanaynaa marka ruugan waa free waa iska qaadanaynaa almost andala waxaan lagu daray waxaan helnay 24 dhibcood ayaan lagu abaalmariyay sidoo kale haddii aad basalka qaladid waxaa lagu ridayaa hoos waa tahay ruugan muxuu qaatay aan soo celiyo ruugan kuweynteena ayuu qaatay laakiin kuweynteena maadaama uu qaatay waxaad ka fikirtaa oo ama waxaa laga yaabaa inaad is leedahay ciyaartu way dhammaatay kuweynta laga qabtay no ciyaarta ma dhammaan ciyaartu waxay dhammaataa markii boqorka la qabto ruugaas ayaan qaadanaynaa ruugaas markaan qaadano boqorkan khatar ayaan ku haynaa boqorkan haddii aan khatar ku hayno inta uma bixi karo oo fardaheena ayaa noo hayo intuu ka baxayaa marka ciyaartu way dhammaatay oo ruugaas ayayba ku dhammaataa sorry ruuganaa soo laabanayaa mar kale handala waa qaadaynaa ciyaarta 2 move wayba ku dhammaataaba okay ruuga markaan qaado waa ku qasbeen ruuga inuu soo laabto sababtoo ah waan saddexdii aan idiin sheegay isticmaal c b r cda waxay tahay xubinta boqorka khatarta ku hayso in laga qabto hadda xubinteen wax qabta ma lahan sidoo kale protection in la sameeyo protectionka markaan ka hadlaya waa kana hadda boqorka khatar ayuu ku jiraa wax kaloo sameyn kara malaha inuu protection sameeyo oo ruugan soo dhigo laakiin isla ruugan markaan qaado ciyaartu way dhammaatay oo saddexdiiba kuma furno waa xaliyey sababtoo ah xubinteen wax qaban kara malaha oo c ah capture the attacking piece in xubinta khatarta kuwa is laga qabto protection in la sameeyo midda saddexaad oo ah in aaba ordo ranno uma furno oo inuu ordo uma furno fardaheena meeshaan asiga hayo so ciyaartu way dhammaatay basalka kale aan gudubna marka waxaan lagu abaalmariyay midda hadda 20 miya okay ruugan muxuu qaaday ruugeenii kale laakiin ciyaarta iyadana way dhammaatay oo ruugan waan qaadi doonaa boqorkan madow meel uu aadi karo malahan ciyaartana saas ayaan basalkan ku xaliyay sababtoo ah meesha xubinta wax qabanaya malahan c malahan capture malahan boqorka ma carari karo run malahan meel uu ordi malahan oo askartiisa ayaaba xirtay sidoo kale wax xubin kale oo meeshan soo gali karta si uu protection u sameeyana malahan so taasna waa xaliyay ka gudub waa tahay okay wuxuu soo guuray askarigii yaalay a2 ayuu wuxuu keenay a3 macnaha halkan oo kasoo guuray halkan oo keenay innaga maxaa noo furan markaa okay waxaan u jeedaa 2 mar movement 2 move waxaan rabaa 2 move mad ayaan rabaa macnaha 2 move mad ayaan u jeedaa haddii aad aragtid bal isku day inaad xalisid okay way fududahay marka kuweynta waxay tagaysaa meeshaas oo ah d1 markay tagto boqorkan khatar ayuu ku jiraa xasuusno boqorka hadduu khatar ku jiro saddexdii barbardhig marka koowaad xubinta khatarta ku jirta in lagaa qabto
kuweynteena wax qabta ma lahan markay halkaas tagto. midda labaad oo ah in protection uu sameeyo sax protection ayuu haystaa oo rug waxaa soo laabanaya kuweyntan waxay imaanaysaa meeshaas isla iyadii iga celinaya marka ilaan iyada laftarkeeda ma haysato wax difaac saas awgeed ciyaartu way dhamaatay boqorkana saddexdii ma heli doono. kuweyntan ayaan keenaynaa D1 kuweynta kale way ku qasbantahay inay imaado E1 saas awgeed markaan qaato basalkii waan xaliyay. rugan waxay imaaday F5 oo ah meeshan so maxaan samayn karnaa marka maxaa aan markaad basalka xalinaysid saddex walax ka fiiri. marka koobaad checkmate ma dhici kartaa checkmate haddii dhacdo waxa dhan ma jirayso oo wax kale aad ku fikirtid malaan. midda labaad oo ah in xubin aad faa'iidid haddii checkmate aad weysid waa ina xubin aad faa'iidid xubin haddii jirin waa ina position aad faa'iidid. ciyaarta dhanna real gamekana waa saddexdaas ayaa lagu fikiraa positionka inaad ku guulaysatid. midda labaad oo ah in xubin aad ku guulaysatid inaad heshid sababtoo ah xubin haddaad ku guulaysatid qofka kula jiro macnaha almost wuu nijabaya haddii boqorkaada uu safe yahay. so hadda waxaan ujeedaa ani checkmate one move checkmate ayaan ujeedaa qofkii arko sida caadiga haddii aad fiirisid cadaanku wuxuu haystaa rug laba askari saas awgeed waa naga awood badan yahay sababtoo askartaa markay soo socdaan almost meeshan ay promotionka samayn doonaan mid kamid ayaa bixi doona sax laakiin waa very difficult haddii xataa aad dhacdo waa celina. so aniga waxaan imaan lahay meeshaas oo ah E7 sorry E6 marka imaadid boqorkan baxar ku jira meel uu aadan mala inta uma soo laaban karo oo ruugeena ayaa almost haysto intana boqorka ayaa hayo intana askariga ayaa noo hayo. ciyaartana saas ayay basalkana saas ayaan ku xaliyay ciyaar ayay iiga dhigtay. okay saa u jeeda marka boqorka meel uu aado malahan ciyaartuna way dhamaatay waxaan lagu abaalmariyay 19 dhibcood almost waxaan gaarnay 600 ayaan ka soo qaadnay 700. casharkeena maanta intaas ay ku eegay maadaama aan 100 ku darnay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.